ilaan mudane Faad Aadan Cadde ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay degmada Xudun ee gobolka Sool waxa uu baaq taageero ugu diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud si go'aankii uu ka soo saaray in xuduudaha dalka la soo xidho meesha laga hadlay madaxweynuhu soo jeediyay madaxweyne ku-xigeenku garab fadhiyay guurtidii wakiiladii saddexdii xisbi qaran wasiiradii ee ay cadeeyeen in xuduudda Soomaaliland muqaddas tahay dadka jaarka ana gobolada jaar dawladaha jaarka ana ay nabad kula noolaanayaan waxaan u bogay weeye horaan u sheegay maalintii hore ciidanka qaranku tegay Taleex ay ka soo noqdeen subaxii ay joogeen baa waxaan la kulmay anoo lugeynaya waxa gaarigii ii joojisay wasiirka waxbarashada Marwo Samsam Cabdi Aadan waxay tiri ma faraxsanida maxaa dhacay waxaan idhi waxaan ka warwarsanahay waxaan ka baqayaa ciidanka qaranku inuu Taleex ka soo noqdo go'aankii xaray ee wanaagsanaa ee la isku wada raacay ee awoodii Ilaahay siiyay mid dheeraad loogu daray madaxweynuhu la yiri hogaami xil xuduudaha aad baan u taageersanahay aad iyo aad waan ugu faraxsanahay ciidanka qaranka rabshado la'aan dhibaato la'aan xabad aan ridin dadkii soo dhaweeyay dadkuna soo dhaweeyeen iyakana aad iyo aad baan u taageerayaa maano niman gartay dadkay la joogan dadkoodii inuu yahay nabad ku waxayna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha degmada Xudun iyaguna baaq taageero u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba golayaashiisa waxaan ku faraxsanahay go'aankii madaxweynaha iyo dawladda oo dhammaan qaadatay ku saabsanaa gaarista xuduudaha gobolada bari ay gaareen iyo go'aankii uu ka qaatay madaxweynaha ayna ku taageereen xisbiyada qaranku iyo golayaasha qaranku ay ku taageereen haddaan nahay deegaanka Xudun odayaasha ka soo jeeday waxgaradka iyo aqoon-yahanadaba halkaas aan ugu hambalyeynaa waxaad kale ogtahay halkan inaan anagu nabadeen u joogno haddii aan ciidanka qaranku joogin oo aanay nala shaqaynaynin wax badan baa ka xumaan lahaa kumana aanu soo gaarneen xaaladdu halka ay maanta wanaagsan ay marayso sidoo kale Taleex oo kale iyadana colaado yaryar baa ka jira meelaha badan ee uu gaaray ciidanka qaranku meel kasta uu joogo nabad buu ka sameeyaa waxaan aad ugu taageersanahay gaarista ay gaareen ciidamada qaranka xuduudaha bari ee Soomaaliya Barkhad Umar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland degmada Xudun ee gobolka Sool.